runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa anoo magaca bulshada rayidka ku hadlaya mashruucan aadka u qiimaha badan shirkadda dhisaysa Cimaad iyo shirkadaha kale ee Bangi Salaam iyo Golis iyo stakeholderska mashruuc oo dhan waxaan idin leenahay hambalyo runtii fursad fiican ayuu mashruucan u yahay dalkeena waxaad nala socotaan dalkeena runtii waa dal dihin oo cusub caalamku fursadaha waxaad moodaa in loo soo jeedo marinka aan ku naalo muhiimka ah fursad weyn bay sidoo kale noo noqonaysaa inaan halkan uga mahadcelino madaxweynaha runtii mashruuc iyo aragti aan isleeyahay muhiim u ah mashruucan iyo mashaariicda waddanka oo dhan oo haddaysan go'aankaas uusan qaateen aysan suurto gasheen maxaa yeelay mashruuc walba oo horumarineed waxaa sal u ah amni marka madaxweynaha iyo dowladda iyo sida uu noogu hogaaminayo runtii amni la isku halayn karo in dalkan laga sameeyo ay ugu weyn tahay calmiskaad iyo dagaalka lagula jiro Daacish wuxuu mudan yahay runtii bogaadin waxaana aan aaminsanahay inuu saldhig u noqon karo hormuudna u noqon karo marka rajo fiican inay cid walba waddanka maal gashan karta inay u tahay maxaa yeelay amni haddaan la haysan haddaan dowladnimo la haysan ma suurto geli karto mashaariicda noocan oo kale ah iyo horumarinta dalka ka socota sidoo kale mashruucan waxaan aan aad ugu bogaadinaynaa wuxuu fursad u sameynayaa rajo u sameynayaa bulshada dhalinyaradu faktarka la tahriibayso sawir kaliya ma ahan waxay la tahriibaysaa waa shaqo la'aan waa rajo xumo marka haddii amni la helo maalgelin la helo fursad walba oo nolosha ay ku samaysan kartaa sameysmaysa marka aad baan uga mahadcelinayaa Cimaad iyo cid walba oo mashaariicda noocan oo kale maalgelisay iyo mashaariicda kale oo maalgelinta dalka ka socota waxaan leeyahay hambalyo aad baad u mahadsantihiin guul baan u rajaynayaa mashruucan